imikana waxaanu idin haynaa qaybtii labaad ee shakadii aanu ku soo qaadanay raadaarka casriga ah ee ilaa imika dalal yar haystaan ee la sheegay in uu Imaaraadku dhigay gobolka waqooyi bari ee dalka Soomaaliya oo ka tirsan Puntland. waxaanu qaybta labaad ku sii lafa guraynaa sida uu shaqeeyo raadaarkan casriga ah inagoo kadibna raacin doona xogo cusub oo ka soo kordhay cidda raadaarkan adeegsanaysa iyo cidda loo adeegsanayo. ALM 284 wuxuu awood u leeyahay inuu isku daro la socodka hawada iyo sidoo kale madaafiicda goobta ee dhulka laga soo gano, taasoo siinaysa muuqaalo iyo awoodo dheeraad ah oo uu kaga fiican yahay raadarada kale ee casriga ah. goobta istaraatiijiga ah ay ku taalo Puntland oo u dhow gacanka cadmeed oo ah halka laga ceejin karo maraakiibta u kala socota adduunka, khaasatan kuwa u socda dhinaca kanaalka Suez, ayaa raadaarkan ka dhigaysa mid muhiim ah. waayo waxa gacankaas mara 12% ganacsiga adduunka iyo 30% maraakiibta sida konteenarada u kala socda caalamka, sida ku cad xogta ay faafisay International Maritime Organization ama ururka caalamiga ah ee dhinaca badda. xogaha ilaa imika la sheegayo ayaa si sheegaya in Imaaraadku uu raadaarkan u isticmaali karo kooxda Xuutiyiinta oo imika rabshado ka wada badda Cas. agas ayaana waxa halis ku hayay burcadbadeed tan iyo dabayaaqadii 2000 iyo xilliyadii ugu dambeeyay oo ay ka gaala baxaysay kooxda Xuutiyiinta oo maraakiib badan ku dejiyay badda Cas. waxaan la sheegay in Imaaraadka oo ka tirsan dhinacyada muhiimka ah ee gobolku isla markaana gacanta ku hayay saldhig ciraad oo ku yaala Boosaaso tan iyo 2017 uu doonayo in uu arinta u adeegsado si raadaarkan uu la socdo halisaha ay kamid yihiin daroonada iyo gantaalaha ka imanaya dhinaca Xuutiyiinta. waxaa intaa dheer inuu raadaarkan u shaqayn karo xog ururin arinta ka duwan, khaasatan inuu sidoo kale la socdo awoodaha iyaguna isku haysta gobolka, ciidamada badda ee halka maraya, diyaaradaha dagaalka iyo kuwa caadiga ah, iyo xitaa maraakiibta ganacsiga ee maraya diqdiqan caalamiga ah. waxaan waliba intaa la raaciyay in qorshahan lagu dhigay raadaarka ALM 284 uu yahay mid ay howlgal sirdoon u isticmaalayaan ciidamada militariga Israel, isla markaana uu ka dhan yahay kooxaha Xuutiyiinta dalkaas Yemen, sida uu qabo warqaadka AGC News oo intaa raaciyay in dalal badan oo gobolka ku qalboobtamaya oo ay kamid yihiin Mareykanka, Israel, Imaaraadka Carabta, Ethiopia, Masar iyo Turkigu ay doonayaan inay Soomaaliya u bedelaan saldhig ciidan oo ay ka duulaan isla markaana ay ka dagaalamaan dhexdiisa, iyadoo ujeedku uu yahay in halka ku yeeshaan ciidan ballaaran, kaabayaal dhinaca sahayda ah iyo joogitaan xoogan oo ka dhan ah kooxda Xuutiyiinta, sida uu qabo AGC News. warkan ayaana xoojinaya warbixino hore loo baahiyay ku saabsanaa in Imaaraadku uu hab sahayeed u adeegsaday airportka Boosaaso si uu hub iyo agab ciidan u gaarsiiyo maleeshiyaadka uu taageero ee burburiyay dalkaas Suudaan ee quwaatu dacmu sariic. arrintan ayaana ah mid aan waxba laga weydiinin isla markaana aan dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed ee imika uu hogaankii ka wareeray sida muuqata. geeska Afrika ayaa imika waxay noqotay meel uu caalamku ku ciyaaro iskaakada siyaasad dhawlaadka adduunka, waxaana Imaaraadka la fahamsan yahay inuu la xafiiltamayo Turkiga, Qatar iyo Shiinaha iyo sidoo kale dalalka kale ee galbeedka ee halka ku sugan. waxaana waliba intaasi dheer in uu si kal iyo laaba dhabarka ugu sido Israel tan iyo markii uu cadaystay heshiiska diblomaasiyadeed uu la galay, walow uu markii horeba la shaqayn jiray balse aanu cadaysan jirin. waxaana Imaaraadka oo hore u maalgashaday dekada Berbera ee Somaliland ay taasi ka turjumaysaa inuu doonayo inuu saameyn ku yeesho badaha gobolka, xilli Turkigu uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo uu sidoo kale ku tababaro ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. qadarna ay sidoo kale xiriir la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya dhinacyo ka tirsan. Imaaraadka ayaa isagu u muuqda mid aan ku qanacsanayn xiriirka uu la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena aan la ogeyn in dowladda federaalku ay wax ka og tahay tilaabadan uu qaaday ee uu raadaarkan casriga ah ee Israa'iiliga ah ku keenay Boosaaso sida ay xogtu sheegayso. yeelkeedu waxay arrintani dhibaato uga iman kartaa Soomaalida oo haddii ay dhacdo in raadaarkan loo adeegsado tilaabooyin ka dhan ah kooxda Xuutiyiinta ay dhici karto inay sidoo kale duqeeyaan meelo ka tirsan Soomaaliya. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.